بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريكا كو إسبريالين waxay taagan yihiin rafaad badan aan u soo marnay codka iga xiran miya that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. المهم maxay isku baryeelaan isdul taagaynaa cadeynta ay soo bandhigeen maxay tahay Canada oo soo jaabtay una jaabtay Trump waxay leeyihiin ayagana isdul taagaynaa sidaas oo kale Israa'iil waxay taagan tahay Lebanon ciidamadooda nama soo wacayaan hatta iska dhaaf sirdoonkooda ayaan la xiriirnay warkaaleena soo waca information idin haynay mar rabaan arintaasi iyo walideeda isdul taagi doona sidaas oo kale waxaan soo bilaabeynaa bin Ghafiir Smotrich iyo Netanyahu waa saddex xag jir ah oo rajaynayay doorashadan soo socota inay wada galaan ayagoo wada midaysan oo hal xisbi ah laakiin waxa muuqata bin Ghafiir iyo Smotrich in xogaa ay ayaga isku doon saaran yihiin qoladan Netanyahu ay ka baxsan yihiin laakiin maanta hadalkii ugu dambeeyay goodiga ahaa ayaa Netanyahu wuxuu leeyahay haddii ay sidan ku socoto ha ogaadeen inaan kala tuuri doono xisbiyadooda sidaas oo kale qoladanna sib bin Ghafiir yani wuxuu doonayaa ama uu u arkaa xisbigiisa maadaama uu aad xag jir u yahay yani inuu asaga ku guuleysanayo ogow caalamka shalato haddii logiga iyo aqliga iyo u shaqeyn jiray maanta ma shaqeeyaan maanta caatifada shaqeysa emotionska dadka waxa leedahay war meeshana lagu soo macnaha cararaya ay kaalay soo carara macnaha maxaa loo cararaya iyo intee loo socdaa iyo intee dhibaato ay nidaam jira iyo kala dambeyn jirta iyo no bas waxa lagu ciyaaraya maskaxdooda waagi horena waxa lagu tartami jiray qoladaas waa macnaha xag jireen dadka yara inay dhibaateeyaan san yani waa laga carari jiray yani waa la iska baryeeli jiray waa la iska fogan jiray laakiin maanta cagsigeeda hadda waad arkaysaan Mareykanka wixii ka dhacay waxa ka socda Yurub wadamada qaar kood waxa ka socda iyo wixii la midka aanu imaano Hizbullah ciidamada Lebanon iyo Israa'iil waxay leedahay annaga inaan Hizbullah mar walba duqeyno oo naguna aadeeyo xabajoojintii aad ka baxdeen had garan u leenahay inaan duqeyno waxay leedahay sababtoo ah heshiiska wuxuu ahaa in Lebanon ciidamadeeda ay la wareegaan muhiimadaasi oo ayaga macnaha kala furfuraan Hizbullah oo ay la dagaalamaan arintii koow way ka soo bixi waayeen ay dhaxeen laakiin waxa nooga yaab badneed ay leeyihiin Israa'iiliinta dhahay macnaha waxa noogu yaab badan in aan siino information oo waliba aad xasaasi u ah ciidamada Lebanon aan siinayna waxaan leenahay waxa jira Hizbullah rag kamid ah oo meeshas ku shiraaya ama meeshas fadhiya ama meeshas maraya oo kale waxaan ka rabnaa dhahan in ayagu weeraraan laakiin waxaan u jeednaa ayagoo helay information kaasi xasaasiga anaga aan siinay they are choosing waxay dooranayaan to avoid inay iska fogeeyaan oo ay ka fogaadaan ay doonayaan macnaha mar rabaan inay Hizbullah food isdaraan kow annagana sidaas oo kale waa Hizbullah raggan mar rabaan inay macnaha ku dhacaan mana rabaan inay food isdaraan sidaa darteed Mareykan oo ogow muhiimadii ahayd annaga inaan hawshan wadano Israa'iiliin ahaan adinkan aad gabaad noo noqotaan oo yani wadamada caalamka marka ay xogaa xixna dhahaan inaad yacnaga dhahdaan sidaasan doonaynaa maxay dawladda Lebanon meel uma socoto information keenana waa ka cishanayna ma siireen amal yani falanqayaasha mid kamid wuxuu yiri meesha waxa ka cad dawlado badan oo Carbeed in ay sirdoonka Israa'iil ay u daba fadhiyaan akhbaaraadka wadamadooda tusaale yaa xusuusta Imaaraadka yaa xusuusta xataa ma ahan Imaaraad iyo Israa'iil waxa ka dhaxeeya isdhaafsashada xogaha sirdoon ayaa ka dhaxeeya dabcan Abraham Accord heshiiskaasi kuma aynan jirin waxyaalaha noocan oo kale laakiin waa adiga heshiis hoose oo ayaga gaareen ilaa markii dambe la soo bandhigay caadi uu noqday marka hadda Lebanon waxaad arkaysaa dawladda iyo Israa'iil waxa ka dhaxeeya heshiis akhbaar isdhaafsi ah laakiin dawladda Lebanon ma rabto inay Hizbullah ay foodo darto yani kulli waa taas okay shalato Trump hal mar ay wuxuu soo istaagay in Lake Ontario ayaa la bixinayaa Lake America macnaha Lake Canada magaceeda la haawatay waan ka bedelayna Mareykan macnaha u bedelaynaa arinta wuxuu ku sameeyay Iceland ku sameeyay arinta wuxuu ku sameeyay Strait of Hormuz wuxuu yiri Strait of America waxyaalo badan emailka jirta intay ahayd Mexico si ahayd ma aqaan adiga saas oo kale area-daasna sidaas oo kale yani magaciisa ka bedelay Mareykan uu bixiyay yani soo socday saaxiibkoodii ugu dhawaa ay ciisho milix ahaayeen oo hadda cid isaga sokaysan jirin ay fooda galiyeen waa Canada
ra-iisul wasaaraha Canada warka oo soo jaabay wuxuu leeyahay 400 oo sano ay taariikhdan magaca Ontario inuu leegan wato ayuu soo jiray wax maalin ku bedeli kara ma ahan dadkeena way yaqaanaan magaca meeshan la dhaho marka uma baahnin Mareykanka inuu noo sheego magaca saasa loo bedelay iyo yani anaga waan haysanaa laakiin hal arrin jirta maadaama hadalkan oo madaxweynaha Mareykanka uu soo qoray faafiyay ma laga yaabaa waa tane ma laga yaabaa in lagu daro systemka waxbarashada tusaale ahaan oo arrintaas officially in laga dhigo haddii laga dhigo soo ma noqon doonto dhibaato weyn mise arrin iska media loogu talagalay gareeyeen ay nadiifiyeen miinooyinkii ku jiray Hormuz oo ku celiyay okay waxa isweydiin lahayd markab ayaa sidaas oo kale inta la yiri ku qarxay kadib haddana Trump uu soo istaagay wuxuu yiri markaan 100% waan ku kalsoonahay waan nadiifinay ayuu dhahay waxa shay un laga war helay wadamo badan oo Mareykanka xulafo yihiin oo soo macnaha gudbiyay Trump beentiisa weeyaan wax ay nadiifiyeen malaha miinooyinkaasi meeshooday ku jiraan Trump iyo ciidamadiisa waan ognahay inay ayagana naftirkooda dhuumasho ku jiraan marka say macquul ku tahay kada adi hadallo badan oo logic ah ay dawladaha soo jeediyeen waliba dawlado badan meesha marka arrinta marayso maanta waxa hadlay Centacom-ka US Centacom ama taliska dhexe ee Mareykanka waxay dhaheen waxaan qiraynaa xaqiijinaynaa in arrintii lagu kala baxay waan nadiifinay okay hal mar aan sheedo marka asaga We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Internationally recognized transit routes in the Strait are free of Iranian sea mines thanks to the incredible work of the US military. waxa uu leeyahay cadeynayaa si macnaha guul ah ayaan u baabi'inay wixii ku jiray ee miinooyin ahaa dhibaato badan kadib waan nadiifinay Let's take a look at exactly what this means. Here's a nautical chart of the Strait of Hormuz and surrounding seas. It's frequently used by mariners around the world and clearly identifies the internationally recognized track. macnaha hadalka uu ku cilnaa internationally recognized marka uu leeyahay macnaha internationally macnaha caalamiyan waxa loo aqoonsan yahay in maraakiibta meesha ay maraan ma ahan marka meel Iran ay leedahay ujeedadu waa taas Separation scheme, which you see labeled on the Marka? chart as TSS. A traffic separation scheme Waa is a highway sidaas. system for ships on the ocean. almuhim muhiimadeedu intaas ma muhiimadu waa tanaa Shipping has historically used to transit the Strait of Hormuz. And historically xataa marka uu dhahay macnaha meeshan wiligeeda la yaqaanay in ay maraakiibta caadi mari jireen marka meel Iran iska leh ma ahan ayaa loola jeedaa for the past few months, our forces meticulously and Okay. quietly cleared them of sea mine threats using a combination of Navy divers, Navy SEALs, and U.S. air power from the Army, Navy, Air Force, and Marine. waa kana muhiimadda marka wuxuu leeyahay bilihii la soo dhaafay si geesinimo ah ayaa ciidamadeena ku wada quusa ee badda hoosteeda gala awoodeena militariga ee cirka maraakiibteena oo isticmaalnay in aan meesha nadiifino The circumstances were challenging and dangerous to say the least, but we got the job done. laakiin rafaad badan iyo dhibaatooyin badan ayaa jira leeyahay inaan arrintaas sameeyno laakiin ugu dambeyn waan ku guuleysan inaan nadiifino okay arrintan waa cusub tahay Iran kama ina soo jaabin laakiin bal sidee kula taadiga hadda xogaa yar hadalkii maadaama dawladaha Yurub ay dhaheen wax ka jira malaha waa beentooda kada Centacom kiyaaba soo istaagay ilaan Trump hadalkiisa wuxuu maraa inaan la aaminin oo markuu hadlo la dhaho no arrintan xogaa waxba si ka oo kale marka sidee kula tahay run mu dhowday hadeertaan mise weli meesha ay joogtaa yani on Mareykanka arrinta ka soo yeertay oo kale saas almuhim Iran aan sugayna waxay ka dhihi doonto xogaa macquulnimadeeda shaki yar igaga jira xataa falanqeeyasaas ay leeyihiin waxa kaloo sidaa dhahaya saaxiibadii Mareykanka laakiin ninkan hadalkiisa hadeertaan balse kula taadiga intaas